meeshaan waxaa iiga muuqda diyaargarow aan horay u arag deegaanada aan tagnay aanan horay ugu arag ayaa iiga muuqda oo ah in deegaanada la xoreeyey aan wax welwel ah laga qabin iyagoo weliba haddana ka qayb qaadanaya in la xoreeyo deegaanadaasi waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen booliiska federaalka booliiska heer gobol daraawiishta ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halkaa ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaa waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubbaland uu waqti iyo maal iyo fikir begeliyay in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyay waxaan rabaa inaan halkaan baaq uga diro guud ahaan maamulada dalka in ay u diyaar garoobaan sida ay ugu diyaar garowday Jubbaland inay ka qayb qaataan dib u xoreynta dalka dib u xoreynta dalka kaliya maahan in cadowga degmooyinka laga bixiyo deegaanadu haysta laga bixiyo oo la burburiyo kaliya maaha waxaa daba socda dhammaan waxyaabihii iyo adeegyadii looga talagalay deegaanadaasi oo ay ka mid tahay cadaaladii oo ay ka mid tahay dhammaan adeegyadii kala duwanaa ee ciidamada qalabka sida looga baahnaa waxaa ka mid ah oo ugu weyn cadowga marka deegaanada ay ciidamada qalabka sida ay ka saaraan degmadaasi ama deegaankaasi inay joogaan ciidamo ku filan oo amnigiisa sugi kara meeshaan waxaa iiga muuqda diyaargarow aan horay u arag deegaanada aan tagnay aanan horay ugu arag ayaa iiga muuqda oo ah in deegaanada la xoreeyey aan wax welwel ah laga qabin iyagoo weliba haddana ka qayb qaadanaya in la xoreeyo deegaanadaasi waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan halkaan uga mahad celiyo in ay wiilashoodii iyo gabdhahoodii ay darees ku soo geliyeen ay u diyaariyeen inay maaragtaa ay ka qayb qaataan halgankan taariikhiga oo aanan maaragtaa aan aaminsanahay in buugaagta jiilasha soo socda lagu qori doono waxaa maanta dhabarjab weyn gaaray oo wax weyn oo maaragtaa aan hore u gaaray nimankii khawaarijta ahaa ee culmadeenna iyo maaragta madaxdeena qaranka iyo guud ahaan shuruucdeena dalkaba ay ku cad yihiin dhiigooda inuu bannaayay marka ay arkaan geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee horteena taagan message-ka ay tahay inay fahmaan waa fahmeen intii fahmi weydana kullayba markii dhegtooda dhiigga loo daro unbay fahmi doonaan waxaan rabaa inaan baaq uga diro wiilasha yaryar ee la khalday inay maaragta ummadooda iyo shacabkooda dib ugu soo laabtaan hadday ugu soo laaban waayaanna masiirkooda waa la yaqaanaa waayahanna baraha bulshada waa laga arkaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Madoobe oo xaqiiqdii aan ku amaanayo in maaragta shaqo wanaagsan oo qurux badan oo diyaar garow ah ka qabtay deegaankan ciidamadan kaliya hortaagan ma ahan inay diyaar garoobayeen kaliya waxay weli shaqo ay ka wadeen in cadowga laga fogeeyo deegaanada nadboon ee maamulka gacantiisa ku jiro intii naga shahiiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda ka aqbalo intii maaragta dhaawacantayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha siiyo waxaan mar labaad leeyahay madaxweyne mahadsanid sida uu taliyaha sheegayna qaybta nooga aadan ee ah
maaragtay dib u xureynta dalka waan ka geysanaynaa waqti dhowna waxaan rajaynayaa inaan furimaha wiilasha iyo gabdhaha aan ugu imaano iyaga oo guulo waaweyn ka gaaray cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala aadaa u mahadsantihiin